marka dadka qaar waxaa rabaa in meeshan load ay ku qoran tahay oo volume mararka qaar kuu soo baxayo sida groupka dhowr mar ay dhalinyaro badan igu soo weydiiyeen si meeshan load aad ugu bedesho waxa u baahan tahay ugu horeen inaad dib u laabato qaybta settingka aad tagto setting markaad tagto kadib qaybta assetka aad ku dhufato asset markaad ku dhufato dhammaan click meeshan si haday unit ku tahay meeshaas load u bedel hadda tusaalahan hadii aan dhahno anaga load noo tahay unit hadii aan ka dhigno qaybtaasi hadda ay idin tusinayo waxay noqon doontaa meel ay ku qoran tahay volume sida ujeedin 1000 GB ayaa ku qoran 5000 GB qaab volume ahaan ayaad u trade gareyn kartaa ayaad u trade gareynaysaa marka qaabkaas si aad u bedesho waxaad u baahan tahay inaad setting ka tagto asset aad ku dhufato kadibna meesha forex spot aad ku dhufato kadib unitka aad ka bedesho oo load aad ka dhigto dhammaan isku day load inaad ka wada dhigtid si loadka meesha uu kugu soo baxo hadii unit uu ku yahay meeshaasi volume ahaan ama unit ahaan ayaad ugu trade gareyn kartaa